السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وولاشين فلسطين محمد وسو دواada jarnaalkiini maanta waxaynoo diyaarinayaa keeg aad u fudud aan cid walba u samaysan karto wiilasha gabdhaha shaqeeyo. marka hadda waxaan halkan ku shubo 4 xabo ukun, haddana waxaan ku shubo bakeeri sokor ah, waxaan ku shubanaynaa hadii la yiraahdo qaandada yaroo buuxdo oo heel ah iyo xabad faniiniya haddaad rabto ku darsan, haddaadna kuma darsanaysid ka badan heelka. haddaad heel haysan waxaa ku bedelan kartaa joos, marka jooskaaga adaa iska leh, ikhtiyaarkada leh. inta markaan ku garaaco waxaan ku darsan doonaa haafkayga saliida ah. inta markaan isku garaaco nus bakeeri saliid aan ku daray, yoogarka qayb aan ku darsanahay. qaybta ugu horeyda xoogan ku walaaqaya, qaybta kale haddana ku walaaqan doona insha Allah. dawa isla aragno, waa si fudud. isku day wiilasha dhalinyarta, isku day caraga gabdhaha inaad ka badisiin rabaa. waa wax yar oo fudud adinka aad samaysan kartaan oo inii dhibeynin. marka waxaan ku darsanaynaa baking powder-keeda haddii Ilaahay yiraahdo. ma badna baking powder-ka nooc yar ayaan ku shubanayaa oo nus qaandada camal ahaa. nus qaando waxaan u qaatay waa yoogar ayaad ku jirto. yoogar markay ku jirto baking powder badan uma baahno. waa 15 milligaraam powder-ka ah iyo 2 bakeeri oo bur aan soo diyaarsaday. qayb ayaan u shubanayaa. waa adigu hadda malo wax inta soo qaadatay oo qasanayo kale ma dhib badno. aan qasanayna insha Allah. saxankeena hadda waxaan ku soo diyaarsanay saliidan soo marsanay iyo bur. asagana waxay noo diyaarsan yahay. marka hadda bal arag sidaan u shuban doono iyo sidoo noo noqon doono insha Allah isla arkeena. aragtan saxanka sidaan soo marsanay ukuntaan saliida iyo burka aan ku shubanaynaa. maasha Allah, ma dhib badno, cid walba sameyn karto. isku dayo, soona duceey insha Allah. wiilashiina dhalinyarta u sahlan tahay laano dhiba iska haysto masaakiinta kaligooda iskaabul iska waa xaafadooda joogaan. waa inay isbaraan waxyaabaha ay u baahan yihiin. waa hooyada iyo walaalahood ay ka barteen waddanka markay ka soo tagayeen keegi wax walba ehelkooda ka cuni jireen. marka waa kan iska sahlan yahay, ma dhib badno insha Allah. hadda furunka noo gelinaya, markaan ka soo saarana waan isla arki doonaa. waa ka maasha Allah saas inoo noqday keeg yaro jilcan oo naacim oo noqday maasha Allah. waan jarjaranay maasha Allah. hadaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha Allah.